kadib markii adduunyadu bilowday inay samayso isbeddel la jaan qaadaya dhinaca tiknoolajiyadda ayay dalalka qaar bilaabeen inay kordhiyaan xawligooda dhinaca dhaqaalaha. halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa 11 wadan oo ka mid ah kuwa dhaqaalahoodu uu sida xawliga ah u kordhiyo. kaalinta 11aad waxaa ku jira wadanka China oo 10kii sano ee u dambeeyay sameynayay xawli koriin dhinaca dhaqaalaha ah. wax soo saarka alaabta raqiiska ah iyo waliba dhoofinta badeecadaha istabajooga ah ayaa ka caawisay inuu kordho wax soo saarkiisa guduhu. 7% ayuu kor u kacay dhaqaalaha dalka Shiinuhu 3 sano ee ugu dambeeyay, taas oo keentay in dad badan ay aaminaan in mustaqbalka dhow dalka Shiinuhu uu kaalinta ka saari doono dalka Mareykanka. kaalinta 10aad waxaa ku jira wadanka Uzbekistan oo ku yaala Aasiyada Dhexe. waa wadan ay ku hareereysan yihiin xuduudo isla markaasina aan lahayn bad. dhoofinta cudbiga iyo gaaska dabiiciga ah ayaa ka mid ah waxyaabaha uu dhoofiyo wadanka Uzbekistan. sidoo kalena qodaalka dahabka ayaa ka dhigay wadankan mid gaadha isku filaansho dhinaca dhaqaalaha ah. kaalinta 9aad waxaa ku jira wadanka Bhutan oo ah wadan buuraley ah isla markaasina ku yaala Aasiyada Dhexe. waxa uu xuduud la wadaagaa wadanka Tibet. wadankan ayaa dhawaan ka soo dhex muuqday wadamada ugu musuqa yar ee adduunka. wadankan buuraleyda ah ayaa ah wadan tirada dadkiisu ay yar yihiin isla markaasina waxa uu galay kaalinta 165aad ee wadamada ugu dadka badan adduunka. kaalinta 8aad waxaa ku jira wadanka Ireland ee qaaradda Yurub. cashuuraha wadankaasi oo hoos loo dhigay ayaa soo jiidatay shirkadaha maalgashigu inay wadankaasi tagaan. ilaa heer shirkadaha maalgashigu ay qireen in wadanka Ireland ay tahay meesha ugu habboon ee la maalgashan karo. kaalinta 7aadna waxaa ku jira wadanka Argentina ee Latin America. xilli wadamada Latin America uu dhaqaalahoodu hoos u dhacayo ayaa haddana waxaa jira wadan sameeyay koriin dhinaca dhaqaalaha ah oo aad u sareeya. wadankaasina waa dalka Argentina. Argentina waxa ay ka mid tahay wadamada ugu horeeya ee soo saara saliidda ee wadamada Latin America. kaalinta 6aadna waxaa ku jira wadanka Congo ee Afrika. wadankaasi oo la daalaadhacaya musuqmaasuq ragaadiyay wadankaasi haddana waxa uu ku guuleystay inuu dhoofiyo kheyraadkiisa dabiiciga ah. ka ganacsiga macdanta ayaa keenay inay magaaloobaan dhul badan oo markii hore baadiye ahaa. hubaal haddii si wanaagsan loo maamulo kheyraadka dabiiciga ah ee wadanka Congo waxa uu noqonayaa dalkaasi mid ka mid ah wadamada ugu wanaagsan ee koriinka dhaqaalaha marka la eego qaaradda Afrika. kaalinta 5aadna waxaa ku jira wadanka Slovenia. waa wadan barwaaqo ah oo aad u qurux badan isla markaasina ka mid ah wadamada ugu horumarsan dalkii hore loo oran jiray Yugoslavia. wadankan oo xuduud la wadaaga wadamada Talyaaniga iyo Austria waxa uu soo saaraa dhagxanta laga sameeyo kombiyuutarada iyo sidoo kale dalagga beeraha oo uu dhoofiyo. tirada dadkiisa ee shaqo la'aanta ah ayaa lagu qiyaasay inay tahay 7% oo kaliya. kaalinta 4aadna waxaa ku jira wadanka Panama. xilli wadamo badan oo ku yaala bartamaha qaaradda Amerika ay u dhaqaaqeen jihada qaldan ee dhanka dhaqaalaha ayay Panama u dhaqaaqday dhinaca horumarka. waxa ay ka faa'iiday mowqaca ama barta istiraatiijiga ah ee ay ku taalo. sanadkii 1914 ayay Mareykanku ka dhiseen kanaalka Panama wadankaasi, balse waxa faa'iidadeeda qaata dalka Panama. tan iyo 2012 wadanka Panama ayaa dhaqaalihiisu uu kor u sii kacay, inkasta oo 30% dadka reer Panama ay yihiin dad fuqara ah. kaalinta 3aadna waxaa ku jira wadanka Ethiopia. wadanka Ethiopia waxa uu sameeyay horumar la taaban karo 10kii sano ee u dambeeyay. tiradiisa iyo wax soo saarkiisuba si weyn ayay kor ugu kaceen sanadihii la soo dhaafay. Ethiopia waxa ay dhoofisaa waxyaabo ay ka mid yihiin bunka, kofeega iyo badarka oo dhaqaalaha dalkaasi ka caawiyay inuu si dhaqso ah u sameeyo koriin. hadda waxa laga bilaabay dalkaasi qodista dahabka. kaalinta 2aad waxaa ku jira dalka Hindiya oo sameeyay sarukac dhinaca dhaqaalaha ah iyo wax soo saar, taas oo ka dhigtay wadanka Hindiya mid ka mid ah wadamada koriinkooda dhaqaaluhu oo aadka u xoogan yahay. Hindiya waa wadanka 2aad ee caalamka ugu dadka badan. dalka Hindiya waxa ay ka mid tahay meelaha ay ka soo bilaabmeen ilbaxnimooyinku. dadka Hindida ana waxa lagu sifeeyaa inay yihiin dad shaqo badan. kaalinta ugu dambaysa ee 1aadna waxa galay dalka Indonesia. dadka Indonesiyaanka ah tiradoodu waxa ay gaaraysaa 261 milyan oo qof. Indonesia waa wadan uu korayo dhaqaalaheeda iyo sidoo kale tirada dadkeedu
ay si xawli ah sare ugu kacayaan. dalka Indonesia waxa uu ka mid yahay wadamada quruxda badan isla markaasina sida weyn ay u jecel yihiin dalxiisayaashu inay booqdaan, taas oo ka mid ah qodobada ay dalka Indonesia ka hesho dhaqaalaha ugu badan. dalka Indonesia waxa uu leeyahay goobo dabiici ah oo qurux badan isla markaasina ay jecel yihiin dadka dalxiisayaasha ah inay soo booqdaan, waxaanay ka mid tahay ilaha dhaqaale ee dawladdu ay ka hesho lacagta ugu badan.